بالقياس adigoo taagan qarka dekad weyn waxaadna arkaysaa markab dheerarkiisu la eg yahay 5 munaaradood oo Eiffel Tower ah oo isku xiran oo si tartiib ah ugu soo dhawaanaya jambiga dekada. Markabkan xamuulka ah ee Maersk Triple E waxa uu miisaankiisu dhan yahay 220,000 oo tan, taasoo u dhiganta culayska 200,000 oo baabuur oo isdul saaran. Haddii uu markabkan xawaaro ku socdo waxa uu u baahan yahay 3 mayl oo bannaan si uu u istaago xitaa haddii matoorada laga damiyo, laakiin hadda waxa uu u baahan yahay inuu si sax ah u istaago meel aad u cidhiidhi ah oo loogu talagalay. Markabka intaas la eg ma qaban karo shaqadan kaligiis, isteerinkiisana wuxuu shaqeeyaa oo kaliya marka uu biyaha ku dhex socdo xawaaro sareeya, balse marka uu dekada u soo dhawaado wuxuu noqdaa sidii dogob weyn oo biyaha dushooda iska dhex yaala oo aan la xukumi karin. Halkaas waxaa ka soo baxaya mucjisada dhabta ah ee dekada. Doon yar oo u muuqata sidii inay ku habboon tahay baaldiga qubayska. Tani waa tugboat, waa doon aad u awood badan oo cajiib ah. Si aad u fahanto awoodda mashiinkan yar waa inaan eegnaa cabirka. Inta badan doomahan waxay dhererkoodu u dhaxeeyaa 20 ilaa 40 mitir, miisaankooduna waa qiyaastii 300 oo tan. Marka ay doon 300 oo tan ah riixayso markab 200,000 oo tan ah, waxaad arkaysaa loolan u dhaxeeya hal qayb iyo 660 qaybood. Waxay u muuqataa sidii mooto yar oo isku dayaysa inay diyaarad Boeing 747 ah marinada cidhiidhiga ah ee dhismaha dhex mariso. Haddana si mucjiso ah ayay u shaqaysaa. sirta ka dambaysa ma ahan xoogga weyn ee muuqda, balse waa xisaab cilmiyeed loo yaqaano Polar Bull. Kani waa nuxurka dhabta ah ee awoodda tugboat-ka. Waxaa lagu qiyaasaa iyadoo doontan lagu xirayo bir adag oo dekada ku taal, kadibna lagu cabirayo inta ay la eg tahay jiidista ay samayn karto marka matoorada u shaqaynayaan awoodda ugu dambaysa. Doon yar oo casri ah waxay dhalin kartaa awood gaaraysa 100 tan oo xoog ah. Qaar ka mid ah kuwa badweynta ka shaqeeyana waxay gaaraan ilaa 300 oo tan. Laakiin halkan waa meesha ay sheekadu ku xidhan tahay. Tugboat-ku uma baahna inuu ka weynaado markabka, ee waxa uu u baahan yahay oo kaliya inuu xoogga saaro meesha saxda ah, jihada iyo waqtiga saxda ah. Ka fikir albaabka ama ganjeelka gurigaaga. Albaabkaagu wuu cuslaan karaa, laakiin cunug yar ayaa si fudud u xiri kara haddii uu ka riixo dhinaca laga furo albaabka ee uusan ka riixin dhinaca birta ku haysa derbiga. Masaafada aad ka fogaato barta wareegga waxay labalaamaysaa awooddaada. Tugboat-ku nidaamkaas oo kale ayuu isticmaalaa. Markabka isagoo ka riixaya horay ama gadaal, isagoo xoog yar u adeegsanaya, wuxuu keenayaa wareeg aad u weyn oo la yiraahdo turkey. Haddii awooddaasi tahay mid cajiib ah, tiknoolajiyadda gudaha ku jirta ayaa ka sii daran. Doomihii hore waxay lahaayeen mashiino go'an iyo isteerinka caadiga ah, taasoo ku qasbi jirtay inay iswareejiyaan ka hor intaynan wax riixin. Laakiin kuwa casriga ah waxay isticmaalaan nidaamka asymmetric thruster ama sea drive. Matoorka hoose ee doonta wuxuu u wareegi karaa 360 darajo. Taas macnaheedu doontu waxay u socon kartaa dhinac kasta, waxayna ku wareegi kartaa meesheeda, waxayna dhalin kartaa awood dhinac kasta ah oo u jeeda isla markiiba iyadoo aan loo baahnayn in doonta la warwareejiyo. Qiyaas baabuurkaaga oo taayiradiisu ay u jeesan karaan dhinac kasta si madax bannaan iyadoo uusan baabuurka u jeesan dhinacaas. Waxaa jira xaqiiqo kale oo dadka badankooda aysan filayn. Shaqada ugu muhiimsan ee tugboat-ku qabto marka markabka dekada la soo gelinayo ma aha inuu markabka hore u riixo ama geeska ka riixo. Shaqadiisa ugu weyni waa inuu u dhaqmo sidii brake ama shock absorber. Inkasta oo markabku si tartiib ah u socdo, miisaankiisa oo ah 200,000 oo tan ayaa leh tamar loo yaqaano kinetic energy oo aad u weyn. Haddii uu markabkaas taabto dekada isagoo wax yar ka dheereeya sidii loogu talagalay, burburka ka dhalan karaa waa mid masiibo ah oo dumin kara dhammaan dekada. Tugboat-ka jooga dhinaca ee u dhaxeeya markabka iyo jambiga dekada ayaa dhab ahaantii dib u riixaya markabka, isagoo matooradiisa ka soo horjeeda culayska markabka. Waa isku dhac la kantaroolayo oo ka dhex jira shuruucda fiisigiska, taasoo ka dhigaysa in markabkaas weyn uu dekada ku tiirsado si tartiib ah oo nabad ah. Dhammaan howlgalkan waxa uu dhacayaa iyadoo kabtanka dekada uu saaran yahay markab weyn uu raadiyaha kula hadlayo kabtanka tugboat-ka, iyadoo ay dabayshu ku dhacayso konteenarada sare, hirarkuna ay ruxayaan doonta hoosteeda. Marka markabku soo galo marin cidhiidhi ah, tugboat-ka hore ayaa silsiladda ku jiidaya
si uu jihada u xukumo, halka kan gadaal joogana uu adeegsanayo inuu markabka wareejiyo sidii irbadda kombaska oo kale. marka la gaaro meeshii la dhigi lahaa ama lagu baakimi lahaa mid kasta oo ka mid ah mashiinada sea drive-ka waxay u shaqaynayaan si ka duwan si ay u hubiyaan in markabku uusan dhinacna uga dhicin dekedda. nidaamkan oo dhan laga bilaabo marka ay doomuhu kala kulmaan markabka badda furan ilaa marka xadhkaha lagu xiro dekedda waxa uu qaadan karaa inta u dhaxaysa 30 daqiiqo ilaa saacad. ma jirto hal ilbiriqsi oo shil ah. dhaqdhaqaaq kasta, xagal kasta iyo xoog kasta oo la isticmaalo waxaa go'aamiya khibrad 10 sano ah iyo faham qoto dheer ku saabsan sida walxaha waaweyn ay ugu dhaqmaan meelaha ciriiriga ah. tugboatku ma ahan oo kaliya doon yar oo shaqaysa ee waa mashiinka ugu dhaqdhaqaaqa badan ee deked kasta laga helo. sababta maraakiibta weyn ay maalin kasta si nabad ah ugu soo galaan dekedaha adduunka adigoo aan maqal wax shil ah alla ka sokow waa iyaga dartood. waa sheeko cajiib ah oo ayna baraysa in fiisigiska uusan dan ka lahayn cabirka balse uu daneeyo oo kaliya xoogga, jihada iyo waqtiga. xaqiiqada ah in safar uu markab 200,000 oo tan ah ku maray badaha adduunka oo ku soo gabagaboobaya control doon yar waa mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee injineernimada. haddaba daawade ma isweydiisay waxa dhaca haddii xisaabtu khaldanto oo markab intaa la eg uu shil ku galo dekedda. injineerada dekedda ayaa sidoo kale qorsheeyay sida ay uga badbaadi lahaayeen isku dhacaas, waana mowduuc kale oo qarsoon oo u baahan in la baaro. haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, subscribe-na dheh page-ka si aad u hesho muuqaalo kale oo xiiso badan. mahadsanid.